warwaadigan kashkashlaynee kelmadaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix kurodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn now dee dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kalamaana maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino waraadha war ma haysaan magaalada muqdisho maalinta saddexaad bay banaanbaxayeen geedley war magugi carabta halkan ka daay war laagdi shilin Soomaaliga haytay la karha jireen waayay may warka naga dhex gelinine waayii hore markii geedleyda banaanbaxaan madax baa u tagay jirto waxay ka cabanayaan kala hadli jirtay hadda saddex maalin cid juu tira haba yaraatay ma jirto war aanel wal mooshiidi BLA dhagaha gaasa ka jaran maamulkan dhagaha inta ka jaraysan iska seedo koran madun war ma haysin gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu xil saaray gudi la hadla geedleyda war gudoomiyuhu sida uu sheegay gudiba u saaray arintaas wariyayaashii la xirana wuu soo daayay wuxuuna sheegay inuu kala xaajoonayo wixii ay tabanayeen laakiin sagaayadleedu waxay balaayo ku dhigeen maalin baxaafad cusub ay ka bilaabayaan banaanbax marka xagee lagu kulmaya ayaga gurguurayo gudiga ka daba meeraysanayee warnimada gaadiidleyda banaanbaxaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Facebook ugu khudbeeyay wuxuu yiri kacdoon shacab waa loo baahan yahay banaanbaxa wada war ma ilaahay uunkona alalaase waa leeri Cabdiraxmaan Cabdishakuurna mantun iyalka biilan waaysiin wala usata ka sii shukaamiyaa uma ay araada BLA waxay ka cabanayeen jidadka xiran waaye canshuur kaanana waa la yiri meelay maraana waa waayeen hadii Cabdiraxmaan Cabdishakuur aasiri banaanbaxa wada jidadkana inta dhima hadaa la sii xirxira waxa banaanbaxa wada waa kirishbooyaal shaqo waayay ayay war ma sida qabaarmooga tahay madaxdii carabta waxay eedsatay rooti qaaliyowe iyo dad shaqo waay war kacdoonkii gugi carabta saxaafada boonboonisa la yiri wax hadda wariyaasha loo xirayna waa inaan codka shacabka la maqal war madaxda markay xilka doonayaan wariyaasha aad ay u jecel yihiin markay xilka helaana wariyaasha aad ay u naxbiin war ma siin lahaa wariyaalka Soomaaliyeed sabareen sinid iyo inay googo aan dhimanayo bali jeelad doonay aadan isaaqow war ma hayside sinkii dheeray mar hore la siibay horta kalamaanay anigu waydan la yaabana dad damiir leh oo wadaniyiina oo dadka hore u naxa ma waadan ahayna war ma hayside dawladda 4.5 lagu qeybay war qodobka 8 tobnaad dastuurka akhrisanayo war wadanida sanadkan wax kala waayano xariifo caadis ka dhigsadooda ku qaadano noox markay yiraahiina banacay aryaadahan mafrahaydan galaane warka halayga dhigansado shaqira lagu yiri weedinka banaanbax iyo jidad la xira iyo BLA iyo ka sheekay haaye dadkan heer beledweyne ee biyuha iyo webiga ku banaan baxeen ma waadan arkina war maanta ay ugu daraydo madaxdii gobolka iyo degmada iyo ganacsato iyo mas'uuliin kale ayaa inta doon raacday ay la qalibanto ilaa hadda 20 qofooda la leeyahay dhimasho iyo nolol war horta beledweyne dhibaato ka taagan dadka Allah ka badbaado amiin biyaa beledkii oo dhan qabsadee ilaahay how yasiro dadka amiin inta ku dhimatana Allah oo naxariisto amiin inta ka fakatana ilaahay ha caafiyo midana idin sheega heer beledweyne inta dabaasha taqina webiga kor u celsha intaan dabaal halka aqaanina waa tiitiin badan asay dhulka ku dhegdhegeen asay ku leedeen muga webiga waxa lagu eedeeyay inuu qabyaalad sameeyo oo dadka qaar kor u siisido qaarna tiitiin bihaayo dhulka hoose arhooya isku shiixa oo hadii dabaashii bara waysan oo mawubiga tadana dad amal oo la hadlaysin oo eedeynayso qabyaalad ku eedeynaysin arhooy isku xishooda booyaalo waxaan idin weydiinaa maxaa iskuwan kale webiga la yuyumbiyo haya arwaabaha berga webiga allagu uma loolina laga aamusaha dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa madax iyo majaba magaalada beledweyne ee dhamaanteed biyuu ka saran mareen yaan la daawan magaaladaas iyo dadkaas ee haloo gurmado anigu waxaan intaas ku dari lahay mug waa abaar mugna waa aarane maanta aarankiya dadkii asiibayo eber ka dhigaye
ilaahow abaartii aaran keenaya afaysay ummadii dhammaan abaartii aaran keenaya afaysay ummadii dhammaan waraadha war ma haysaana maanta aqalka sare wuxuu ansixiyey sharciga xuquuqda siyaasiyiinta siyaasi Soomaaliyeed xuquuq la miyaa jira ma Soomaalidana mishaar la siin karaa Soomaalidan waa siyaasiyiin war Soomaalidu may gaarnay haan hasaaniid le wala siya wala gaari araal xasaasiyadda aad sheegaysa intaad iga dhaaftiin barfaltaar dufla hadle warkayga maqla asaga waxdaasiyada daawiyakaas araa warkaan ka dhameystay shib iga dheh waxaa siri siyaasiyiin xaqooda ka hadlaysiin dadkiina biyaa dhameeyo ma ka siiyey war Senator Axmed Xaashi wuxuu yiri bal cadiyabku midna ma tagi kare xuquuqda aan leeyahay maxay tahay war ninkaas waaba dheeraystay hurwaay xataa ma tagi kara ma dhaho war gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi meequlaha dadka loo gurmado hadii war laga yeelayo hore waxa loo yiri hadii hal waayeel la yeeli lahay waxarda waxa ma cunteen war Abdulla adin hal waayeel ay faday aaranka kumi gooy waysana war guddiga gurmadka fatahaadaha waxay dhaheen ciidan annagana soo marin wax gargaar ma samayn karto hooqaashay haddana sadaqad miya kala wareeg la geliha war maanta anigu anoo ku hadlay afka Kalamaan waxaan baaq u jeedinayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan kula talinayaa inay baxaan oo beledweyne dig ka yiraahdaan oo dadka dhibaatada la qaybsadaan gacanna ka geystaan caalamkana baaq ugu jeediyaan ayagoo dhibaatadu meesha ka dhacday jooga ayaga warkooda la tixgelinayay war madaxweyne farmaajo sanadkii la dhaafay beledweynisaadi iyo biyo hebadka roogan ya meelu qudbu ku gobadi ka dambana dadkii walan gargaari samata been aniga war aan idin sheego wari careeso biyaha ku dhex lugaynaayo oo dad u gurmanaayo aan indhaha soo saaray marka waxa maas ka mid yahay kuwa biyaha kor u sidaan oo la sheegay war biyaha wabiga dadna waa ku dhamaaday dadna malaay iska gaadinayeen war adeer wabiga waa ku baabaadeene ma xaggayga u soo leexisaan beledweyne allahayo balayada hareer mari aryaadaha war ma haysiina beledweyne walax ka daranaan maqlay dhagansad albaqdaadi ninkii la dhahayo daacis madaxdu u ahay horta Mareykan ma dilina asaga isdilaal la yiri lama xaasow qabay iyo 3 ilmaahow dhalana asaga dilaal la yiri hadda mugow ogaado inuu san baxsahaynin oo ilmihiya naagahina qarax ku xiray asaguna isqarxiya asay hal mar isla kaceen war ilaa hadda waxa noo sheegtay dhaqan argagixisa horta raggu dumarka waa ku xun yihiin nin xaaskiisa in looga dambeeyo ma jecla marka islaamaha hadile muxuu ciyaalka saqiirada ku maago u laay war ilmaha in Washington laga geeyo diiday Washington hadda u diiday hadday aakhira la joogaana waxa ku dheefahe yaa baa igu oga kaas in naxariis lahayn waa cadeystay naxariis la'aanta iimaan la'aanta u ka daray war cod laga duubay waxa la ogaad inuu tahay uusan tawxiidin taas waxa uu ahay idin cadaahee mugga war ma haysaan albaqdaadiga aad ka hadlaysaan waa Suuriya meesha lagu galay saako waxa ka dhacay war ma ka haysaan akhirtay oo adeer saako iyo Suuriya miisu lawyin Suuriya saako waxay isu ka dhaamaan shabaab iyo daacisha kala jooge warka naga dhaxgelin inay dhageysto baabuul weyn oo kilsooba ku qarxayo kala oo qarax laga soo buuxiyo cirka looga soo dhacay la yiri hadda bugsi ka yeerto waa la yaabay kulay tabana wixii radayay wixii ag jooga bana waa mart ma qarxiyayaal qaraxoodii lagu qarxiyaa war intii shacabka ay gubi lahaayeen ayaga hal gubeen naga taga war gantaala lagu dhiftaa la yiri asagu ku qaraxyaana lama oge war ma haysaan gantaalaha cirka ka soo dhacaya marmaray dad masaakiin laayaan oo amiir row maleeyaan hadda gobolka bari maalin dhaweed dad masaakiin oo xiji guranaya ayaa gantaala la dhacay kadibna waxa la sheegtay in amiir lagu dilay meesha ma masaakiin iska xabkaysaysa in la dilaya daacish hadana lagu sheega war baarlamaanka Puntland waxay dhaheen waxaan la xisaabtamaynaa xukuumadda Deni iyo xiriirka xukuumadda Deni iyo dawladda dhexe ka dhaxeeya marka waxaan u maleynayaa baarlamaanka Puntland in gudoomiyihiisa doobo gareen laga dhigay war baarlamaan maamul goboleed maxaad ka sheegaysaan kii federaalka ba asagoo dhamin kareemaysan madaxweyne ku-xigeenka Puntland karaash kareen Deni malahishi yaa okay boowe Puntland waa hooyadii federaalka mana la faragelin karo war aabihii federaalka galmudug ta ku dhacdaaba la yaabay hooyo miyaa loo daahaya eebaago beriga hankoolkii galmudug waa cadeystay dhaqanka galmudug yaalana dhaqan aabe maahe waa dhaqan orfano hadalkaas abwaan maxamed sahal baa wax ka oran doono kula eg oo wax ii oraha minow rag yaha wax ima dhahayo war kalabaanay warkii Soomaaliland dibadda miyay loodeen eebaago qowdana beriga uu cadeysta asaguna inuu dibadda naga yahay
war awalu cadaystay imisoo ictiraaf raadinay war anugu waxaan la yaabanahay sababta Soomaaliland aqoonsiga raadinayso loogu diiday ara warkayga aad u dhigayso meel qaldan ay ka raadinayaan aqoonsi looma diidano war anigu waxaan la yaabanahay dastuurka Soomaaliland waxa ku qoran goona ugoosadka Soomaaliland waa muqaddas dastuurka Soomaaliyana waxa ku qoran midnimada Soomaaliya waa muqaddas marka lamada muqaddis seeles kugu muqaddaseeya ambaray wadiga batee siyaasiyad bad noqotee kaayaga muqaddisa array madaxu ku xanuunay lamadaba wax muqaddis kuma jiraan nagala hir wareedhaha calool xumada beledweynaan idaynayne dadka maanta ku dhinta waxa kamida dad shalad gaaray beledweyne oo dibadda qaar ka yimid oo gurmad u tagay war dadka beledweyne ku dhintay waxa kamida la taliyay madaxweyne waare Maxamed Habo Allah u naxariista iyadana ma biya qaaday aryaadaha inta dhimataad magacaawdeen intaan la sheeginaa ka badan Allah u naxariisto war ilaahay wabigi jannada ha geeyo bawdhana wabi hana maqashin soo beledweynu galaadan ogeyn Allah idin toosiya sharciga waad ku tumateen wabiga alla idinka badbaadshe